وطهي داود يال سيادر كيسين با وحسن وكعكيم qiimaha maciishada ee suuqyada kala duwan ee Soomaaliland ee bulshaduna si weyn bay uga qeylinayeen waxa ila jooga professor Maxamuud Faarax Warsame Ruush oo kamid ah barayaasha sare ee jaamacadda Camuud isla markaasna ku takhasusay culuumta dhaqaalaha waxaan maanta wax ka weydiin doonaa bal sixir bararkan hadda jira waxyaabaha keenay siyaabaha looga bixi karo ugu horeyn soo dhaw bismillaahir rahmaanir rahiim waad maasantahay marka waxaan bal yardul joogsan doonaa sixir bararka horta waa maxay sixir bararka markaynu sheegno dabeeto waxaynu sheegi doonaa sixir bararka hadda jira halkeebuu ka yimid sixir bararka waxa la yiraahdaa waa marka alaabooyinku si guud ay qiimeeyasho ay u kacaan maanta waynu ognahay waxa laala wixii aynu isticmaalnay maciishadii iyo shidaalkii dhamaanba way kaceen marka sixir bararka horta loo jeedaa waa intaas noocyada marka sixir bararka waxa jira ilaa 3 nooc saddexdan nooc waxa weeyaan mid waxa la yiraahdaa oo kamaanta jira waa kharashka alaab soo dejintii ayaa kordhay oo aynu sheegi doono gadaal ka sheegi doonaa meelaha uu ka kordhay waxa kale oo jira mid la yiraahdo xagga lacaga ka yimaada oo kii bariye hore jiri jiray 4 sano ka hor oo inta badan dollarku oo suuqyadan ku yaraan jiray taasina ay keeni jirtay in lacagta Soomaaliland qiimo dhacdo markay qiimo dhacdana waxay noo goynaysaa ama lacaga ama alaaba ay yaraato noocaasi marka imka ma jiro dalka oo kaywa ka dhamaaday waxa jira nooc kale oo ka yimaada xagga markay alaabada suuqa taala yaraato baahida alaabta loo qabaana ay badato kaasina imka ma jiro kayna noocaasina imka ma jiro marka haddaan noocyadii aan sheegnay kamaanta jira waxa weeyaan ka alaabada xagga ka kordhay kharashka soo dejinta way kharashka soo dejintuna laba dhinac buu ka yimiday tadhowban ayaan ku horeynay saad la socotaan DP Well waxay kor u qaaday soo dejinta ama harida konteenarada 40 feet halkay ka barigii hore boqolkiiba waxay kordheen kuwaasi 40 feet ku kordhay boqolkiiba 230 buu kordhay taa marka waxa laga dhaxarkaya kororka percentage-ka ama boqolayda ay kordhay soo dejinta yar haridu DP Well waxa laga arki doonaa marka qiimayaasha alaabada because ganacsaduhu kharash walba soo kordhay isagu xusaaraya ugu dambeyneen cid iibsanaysa alaabada kaasi marka waa mid oo xaggaas u ka yimid kharashka alaabta soo dejinteeda kororku waxa kale oo jira oo kordhaysna kharashka uu dhinaca kale ka kordhayna waxa weeyaan waa xagga saameynta dhaqaalaha keenay Covid-ku oo adduunyada intii hore kala xidhnayd waxa dhacayay in konteenaradii helitaankoodu adkaado sababtuna waxay ahayd cudurka dartii dekadihii markay noqoto haridii iyo soo dejintii ma aadumay shaqeyn because dad fara badan oo waxa ka shaqeynaya bukay oo kulba qaar xanuunsanayeen marka konteenarada qaar kood ba meel aan looga baahnayeen taasi waxay keentay idna marka inay konteenariskii heritaankoodu yaraadana uu keeno in konteenaradu qaaliyo marka taas marka waxay keentay inay alaabtuna ay raacday marka ay la qaaliyoodo marka si guud sixir bararku maanta jiray halkaas uu ka yimid waxyaabaha sida gaarka ah dadku uga cabanayaan daruuriyaadka qaaliga noqday qiimahooda aadka isku bedelay waxa kamid ah shidaalka iyo maciishada dadku isticmaalaan benziniska loo yaqaan marka haddii aanu si gaar ah soo qaadano shidaalka maxaa isaga dhibaatada shidaalka marka loo sixir bar dhaco waxay mudaan safka hore kaga jiro alaabaha kor u kacaya muxuu kaga duwan yahay shidaalku marka maciishada kale isaga dhibaatada markastii uu safka hore u galay maxay shidaalka waxa alaabooyinka kale ka duway shidaalka horta isagana laba eray inaan ka dhacno sababta uu u qaaliyoobay shidaalku sabab ognahay adduunyadu sanadkii 2019 iyo 2020 iyo 2021 ba biliisii hore waxa jiray cudurkan COVID-19 kadib adduunyadu way isku furantay deeto markaa waxa weyn xiliyada hore shidaalku hoos buu dhacay maadaama demand-kiisi markaa kacay markan dambe oo adeegyadii iyo wax soo saarkiiba ay badanayaan taas markaa keentay inuu shidaalkuna qaariyoobo xagga kalena sicir bararkii hore sheegay wuxuu kala qabaa uu kala mid yahay yaani rarka iyo dejinta qiimahooda haday kacaan shidaalkuna kuwan buu ka mid yahay marka isaguna labada inood baa keenay inuu shidaalku qaariyoobo shidaalka waxa gaar ka sii dhigay waxa weeyaan shidaalka waxa ku xiran waxyaalo fara badan baa ayaa loo isticmaalaa marka la soo saaray tusaale ahaan roodhida uu saameynaya oo kamid ah qutal daruuriga dadku ay aad ugu xiran yihiin oo ninka soo saara roodhida ama warshada roodhida soo saartaa
shidaal bay isticmaalaan shidaalku hadduu ku qaariyoobo iyagna waxay saarayaan qiimihii dadkii dee roodhida iibsanayay bay dee qiimihii ku kordhinayaan tusaale ahaan bajaajtoo kale waxay iyaduna shidaal bay dee isticmaashaa hadduu shidaalku qaariyoobo dadkii baa lagu kordhinayaa lacagtii laga qaadaya bajaajta sidoo kale basaskoo kale iyaguna waxay qaariyeynayaan lacagtii lagu korayey dadka waxa weeyaan adeegyada bixiya leerka iyo biyaha dhammaantood shidaal bay isticmaalaan inahaasoo ah inaha ay dadku ay had iyo jeer ku xidhanyihiin lagana maarmin oo dhan buu shidaalku markaa saameeya taasaa markaa waxay keenaysaa si gaara in dadku markaa shidaalka loogu cawdo waxaan tusaale yar barbardhigaya baastadoo kale qiimaheega hadduu kordho waxaa laga yaabaa in dadku dee wax kale lagu beddesha ay jirto oo qofku dee dadku ay cuni karaan waxyaalo kale laakiin shidaalka sinaba ugama baxsan karaysid waa wax yacnaan lahayn wax lagu beddesho taasaa markaa waxay keenaysaa in isaga il gaara lagu eego markaad si u eegto baraha bulshadu si weyn bay uga cabanaysaa sicir bararkii waxyaabay aad ku dalbanayaanna waxaa ka mid ah in wasiirka wasaaradda ganacsigu uu sacasilo xafiiska baneeyo waxay ku eedeeyaan inuu waxba ka qaban kari waayo sicir bararkii marka haddii wasiirka xafiiska ka baxo oo sacasilo sicir bararkii ma sii jirayaa mise wuxuu noqon doonaa mid wasiirka raaca يعني dad fara badan baa waxaan arkay social media la tusaalaha wasiirka wasaaradda ganacsiga oo kale ay sacasilo qaar baa waxay leeyihiin ka maaliyaddu ay sacasilo qaar baa waxbay meel bay la tagayaan laakiin dadkeena wax horta marka hore haboon inaynu akhrisanno dastuurka dastuurku sida uu qeexayo dhaqaalaheena wuxuu ku dhisan yahay mabaadiida suuqa xorta waxa weeye waxa uu shaqeeyaa waa sida yacni dabiiciga waxa looga jeedaa alaabtu hadday suuqa ku yaraatana dee way qaaliyoobi alaabtu hadday suuqa ku badatana way jabtaa marka diinteenuna taasay waafaqaysaa oo waxaa jirta rasuulka sallallahu alayhi wasallam waqti ka mid ah waqtiyada qaarkood oo ay alaabadu aad u qaaliyooday ayaa waxa nin saxaabiyo yimiday wuxuu weydiiyey nebi allow dee qiimayaashan kor u socda ee waxyaalihii la cunaya quutal daruurigii baa dee kacaya bal waxa weyn price wax ka qabo nebiguna calayhi salaatu wasalaam dee markaa wuxuu ahaa hogaamiyey markaa ummadda muslimiinta ama dowladdii muslimiinta isagaa hogaaminayey markaa 3 jeer markuu ku celiyey saxaabigii ayuu markii dambe rasuulka sallallahu alayhi wasallam ku yidhi qiimaha waxa gooya ilaahay baa gooya oo macnaheedu looga jeedo dee haddii midhuhu yaraadaan oo masalan abaara dhacaan dee alaabadu way qaaliyoobaysaa haddii kalena alaabadu way haddii dee roob yimaado oo midhuhu bataanna alaabadu dee markaa way jabaysaa markaa wuxuu rasuulka sallallahu alayhi wasallam ilaahay baan noo baryay inuu alaabada ama waxyaalahan saracay noo badiyo taasa markaa waxay keenaysaa in uu qiimeeyo jaban haddaba halkaa inagoo ka duulayna wasiirka wasaaradda ganacsiga madaxweynaha wasiirka maaliyadda intuba kaalintoodu ma aha inay qiimeeyaasha xadidaan haddaanay qiimeeyaasha xadidi karin oona dastuurkuba aanu awooddaa siin dee sabab la idhaha ha isku casraani ma jirto waxaan intaa ku darayaa xataa haddiiba ay dhacdo oo lagu qanciyo wasiirka iyo xukuumaddaba iyo intii la doonaba haddii sacasiraanba dee roodhidii 3,000 ahayd jabi mayso oo dee roodhidu dee 3,000 inay noqoto waxa keenay daqiimayaasha shidaalka iyo daqiiqda iyo sonkorta iyo biyaha iyo shaqaalaha la dilo doona mishaarkoogaba inay kordhana waa suurtagal waxaasaa keenay roodhida kordha markaa wasiir haddii uu joogo iyo haddii la iscasire iyo haddaanu iscasirinba wax wasiir ku xidhan maaha dadkana markaa waxaan ummadda meelaha ka hadlaysa ama xildhibaana ha ahaadaan ama dadka kale ee iyagu siyaasad uun ka hadlaya ha ahaadaan ama dad iyagu cilmigooga iyo dee intay garanayaan intan tahay ha ahaadaane qofku dadku waxa qurux badan ama dadka shacabka waxa qurux badan ama aqoonyahan ama inaha kala duwan dadweynaha kala sheegay waxa qurux badan in dastuurka shuruucda dalka la eego oo waxa weeyaan roolka dawladdu markaas aan u qeexay weeyaan dawladduna markaa wax kala ma qabato dhaqaalaha xorta marka la joogo waa sidii garsooraha oo kale sida siir wada oo kale ciyaarta wixii cidii wax qaldayso unbay qabtaan hal tusaalaan ku daray kale si aad fahamtaan dawladdu waxay wax ka qaban kartaa haddii imka alaab la keeno badan oo nin meel dhigto si alaabta daqiimiga uu qaaliyoodo taasoo kale waa wasaaraddu waxbay ka qabanaysa oo ninkaasoo kale waa la xidhaya ganacsadaha sameeya intuu alaabta badan meel dhigo kolban yar soo saaraya suuq qiimaha kordhiyo kaasa la qabanaya laakiin marka si dabiiciya ay qiimayaashu kacaan wax saameeyna kuma la wasiirna kuma le haddii sacasirna waxba iska bedelaya halka markaa haddaan ka hadlo sixir bararka maanta jooga iyo kaalinta dawladdu ay ku yeelanayso haddaan markaa aan wax ka sheego laba nooc bay noqon mid waa xal degdega xalka degdegii wuxuu noqonayaa tusaale ahaan dawladdu xilligan oo kale inay maciishada cashuurta ka yarayso inay shidaalka oo kale ay cashuurta isagana si gaar ah uga sii yareeyaan because maadaama ay ku xidhan waxyaalo fara badan
oo ay sidaan soo sheegay roodhidii bajaajtii biyihii leyrkii waxyaalo fara badan baa isaa ku xidhan markaa si gaara waa in muddadaasi kooban shidaalkan cashuurta laga yareeyo amaba laga daayo maciishadana qutul daruurina cashuurta laga daayo TDP weel oo kale inay iyadana maadaama oo dejintii iyo soo dejintii ay qaaliyeeyeen oo boqolkiiba 32 uu ku kordhay containerka 40 fiidii iyagana in waxyaalo cunada in iyadana si gaar ah looga yaro marka labadaasi marka la isku daro waxay keeni doontaa inay in qida sixirbararkii laga dadkii loo fudaydin kara ama culayska laga dul qaadi karo waxa inta raaci karta oo xal labaad noqon kara haddii dawladdu awoodo in iyadana alaabada qutul daruuriga مثلا shidaalka oo kale iyo cunooyinka qaarkood oo kale inay dawladdu xiliyadan oo kale soo dejiso oo qiimo jaban siiso maadaama ay iyadu faa'iido raadineen saana marka waa lagu maamuli karaa waa lagu control karayaa sixirbararka maanta jira dakhliga dawladda meelaha kale laga kabayo waxa jirta inta halka horena raaciyay waxa jirta waxyaalaha dadku ayna u baahnayn ama ayna nolosha ku tiirsaneen luxury schools ka English ka lagu raado waa in waxa dawladdu cashuur badan ay saarto sida jaadka oo kale oo isagu daa wax faakahaysi ah oo in dawladdu ay cashuurta ay saarto baabuurta la soo degaya kuwa raaxado kale waa in cashuur badan la saaro iyo waxyaalaha kale la halmaala waa in dawladdu markaa cashuur badan ay saaraan si dhaqaale halka dawladda kaga baabay cashuurta shidaalka iyo maciishada ay ka deysay waa in meelaha ka soo